aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhallinyarada runtii reer Puntland dadaalka iyo dhiifroonaanta iyo shaqada ay qabteen ay u horseedeen reer Puntland walaalahooda dhibaataysan in maxay tahay gacan ka gaadho aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay dhallinyarada walba waa ku ogeyn laba qodob baan leeyahay raaciyatan qodobka aad inoogu daraysaan markaan tan ka soo baxno waa hadda yaraatay ama maba jirtee waa dhallinyaradu aad wargelisaan oo tahriibta aad guri walba garaacdaan carruurteennii iyo dhallinyaradeenii iyo kuwa idinla midka ahaa meelaha magafe lagu sheegaya arrinkaasi waa inaynu cirib tiraa qodobka labaad waxaad aqal walba ku garaacdaan amniga in maxay ahayd laga safeeyo shabaabka iyo shayaadiinta iyo wixii amni darro Puntland u keenaya dhallinyaradu hadday waxay u kacaan waa fushaa ilaahay amarkiina waa fulaysaa intaa mahadnaqa haddaan ka gudbo waxaanu halkan aynu isugu nimi inaan u diro mucaawamadii ugu horreysay ee Puntland ay ku kaalmaynayso walaalahood marka hore mar labaad iyo mar saddexaadba tacsi baynu u diraynaa wixii wax ku gaadheen dadkii ku geeriyooday hanti iyo nafba tacsi baynu u dirnaa mar labaadka waxaynu goosannay dadka shacabka reer Puntland iyo dawladdiisuba inay sidii caadadu ahaan jirtay degdeg gurmad degdega ay u fidiyaan labadan baabuur hadda ina ag taagani alaabtaa la sheegay ee ka buuxdo waa intii ugu horreysay waa magaalada Garowe shacabkeeda iyo dawladdeeda iyo odayaasheeda iskaashatay iyo dhallinyaradooda faanole faray kama qodno waa runtii Garowe waa u mahadcelinaya xabaaluhuna way soo faanaan bari waa tartanka weligood waa ka qaadan jireen halka ugu horreysa marka uguma dambayso waa bilow dhallinyaradooda iyo shacabkeeda iyo dawladdu waa ka wada dhaxaysa laakiin waa dhallinyaradii reer Puntland ee reer Garowe baa bilowgaas aad iyo aad baan mahadsan waxaanu u diraynaa dadka halkaa ku waxyeeloobay ee reer beledweyne ama Hiiraan ba aan raaho gobolka Hiiraan waxaanu mucaawamada gaadhsiinaynaa dawlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaheeda gobolka gudoomiyaha gobolka guddida loo xilsaaray ee gobolku maamulku u xilsaaray oo ay madax u yihiin madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka inta aanu ka garanayno iyo wixii kale ee maamulaya ayaanu gaadhsiinaynaa waxaanu kalama dardaarmayno sidii ay wax u gaadhsiin lahayn dadkooda iyagaa goobjooga meeshii jooga ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay u sacabagodo wixii mucaawamada tan soo saarayna khayr ilaahay inuu ugu bedelo iyagana ilaahay maxay tahay buu baraka ka siiyo iyo caafimaad iyo barwaaqo intaasaan kusoo gaweynaya idina waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu